السلام عليكم داوديال صباح wanaagsan idil ahaantiin baa meel buu aad naga daawanaysan halkan waa qaran joog qodobadana wararka subaxnimo waxa ugu waaweyn qarax xooggan oo goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo baxsad ahaa oo laga soo qabtay guri siyaasi caan ah iyagoo war cusub ka soo saartay heshiiska ay gaarin ahla sunna iyo dawladda dhexe Soomaaliya iyo loolanka adag iyo lagdanka xaylaysan oo u dhaxeeya dawladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xiisada ka dhex taagan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya waxaana maalmahan la soo dhaafay ee baraha bulshada isku dhaafsanayeen hadalla xurgufa hogaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Ali Khaliif Galeer ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku tagay dalkaasi Gini qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa markaana u diyaar garooba warkeeni oo dhameystiran markale daawadayaasha qiimaha ay qayaha lahow isku soo naqad haboon fadlan hadii aad nagu cusub tahay channel-keena subscribe inoo saar gambalka faro si uu ku soo garo warkii u dambeeyay ee aan soo dhigno wad maasan tahay aan ku bilaano qarax xooggan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya qaraxani oo ahaa waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay waxaana uu yaalay isgoyska meel u dhow Digfer gaarigani waxa uu ku hararsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana uu ahaa gaari madow ee service ah ku dhawaad hal saacad ayay gaarigani ku hararsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana rumaysan yahay inay saaran yihiin laba qofood ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa markii hore gaarigani ku riday xabado kor ah balse dadkii saarnaa marnaba waa ay diideen inay ka soo dagaan ugu dambeyntiina ciidamada ayaa rasaas toos ah ku furay gaarigii kaas oo keentay in uu isqarxiyo dadkiina saarnaana ee halkaasi naftoodii ay ku qamaraan inta la xaqiijiyo waxa ku dhaawacmay ciidamada ka tirsan booliiska oo ku hararsanaa iyo dad kale oo shacab ah qaraxani ayaa mid xoogan oo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho waxaana macquul ah inuu inta ka bato qasaaraha insha Allah wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan wali waxaan ku guda jirnaa isla magaalada Muqdisho shirka amniga caasimadda oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa looga hadlayay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada amniga ay ku sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir shirkani oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa haatanba intiisa badan ka qayb gala saraakiisha laamaha amniga iyadoo shirkaasi gudoominaya Abdiraxmaan Cusmaan yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho saraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askari baxsad ahaa oo ay in muddo ah ku raajoogan ciidamada booliiska Soomaaliyeed askarigani ayaa la sheegay in laga soo qabtay hooyga siyaasi caan ah oo ku dumaaleysanayo inkastoo aysan shaacin laamaha amniga ah magaca siyaasigaasi sidoo kale ciidamada booliiska ayaa gacanta ku soo dhigay kooxo hubaysan oo dhibaatooyin u geysta shacabka ku dhaqan degmooyinka Hodan Wadajir iyo Dharkeele ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir Abdiraxmaan Yariiso ayaa sidoo kale warbixino la xiriirta amniga ah ka dhageystay qaar kamid ah saraakiishaasi hogaaminaysa howlgallada ka socdo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shirkani oo toddobaadkii mar ay ka qayb galaan ayaa waxa diiradda loogu saaraa in amniga iyo dhibaatooyinka gudaha ka dhaco magaalada Muqdisho igad xogayaha guud urur goboleedka igad Maxbuub Macalin ayaa markii ugu horeysay ka hadlay heshiiska ay dhawaanba gaareen kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxbuub ayaa sheegay in igad ay bogaadinayso heshiisyadaasi magaalada Dhuusamareeb ay ku kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca sidoo kale waxa uu lagu farxo ku tilmaamay in Ahlu Sunna ay ogolaado in ay ciidamada ku darto kuwa xooga dalka Soomaaliya xogayaha ayaa intaasi ku daray in talaabadani dawladda dhexe u suurtagelinayso inay la wareegto guud ahaanba amniga dalka waxaana uu yiri Maxbuub waan soo dhaweynaynaa howlgallada ka socdo dawladda goboleedka Galmudug ay ku biirista ciidamada Ahlu Sunna kuwa dawladda Soomaaliya waana garab taagannahay waxaana ugu baaqaya dadka ku nool deegaanada Galmudug inay halkaasi ka sii wadaan howlaha dib u heshiisiinta si guulo waaweyn loogu gaaro ayuu yiri Maxbuub Macalin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaanba si rasmi ah Ahlu Sunna ula wareegay ciidamadii hoostaga si loogu biiriyo kuwa dawladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaana diiwaan geliyay ka bilaabay ciidamada Ahlu Sunna arintani ayaa qayb ka ahayd guulo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gaartay maamulka Galmudug oo dhawaanba galay doorasho soo socota haatan Kismaayo loolan adag iyo lagdan xeeladeysan ayaa saasaantooda ku bilowday magaalada Kismaayo xarunta kumeel gaarka Jubbaland oo ku socdo diyaar garowga doorashada madaxweynaha iyo xulista baarlamaanka waxa uu muuqdaa in durbaba xanaankaasi uu ku bilowday diidmo isjiid iyo ismuqurin wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay soo saartay war saxaafadeed
gaar ah oo ku saabsan hanaanka doorashada maamulka Jubbaland sida ay doonayso wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya waxa ay diidan tahay kana soo horjeedaa sida uu doonayo maamulka Jubbaland uu hogaamiyo Axmed Madoobe musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha Jubbaland oo isbahaystay ayaa dhankoodii waxa ay ka diidan yihiin dhammaan tallaabooyinka diyaar garowga doorashada uu wado guddiga doorashada Jubbaland iyagoo ku eedeeyay inay haatanba guddigaas uu gacanta ugu jiro Axmed Madoobe waxaana u muuqdaa in dowladda Soomaaliya ay halkaasi awood badan ka sameey doonto waxaana u muuqda in doorashada Jubbaland ay noqon doonto mid adag laga cabsi qabo inuu ku daato dhiig maadaama wararku laga helayo ee dowladda Soomaaliya ay ka wado dhaqdhaqaaqyo ciidan dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho iskugu keentay qaar badan oo ka tirsan ogaasyada odayaasha beelaha dega Jubbaland kuwaas oo ayaga kala dhicinayo sida ay rabto doorashada inuu dhaco dowladda Soomaaliya ogaasyadaasi ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ah ogaaska beesha Mariixaan iyo odayaalka dhaqameedyo ka soo jeedo ogaadeen waxaana magaalada ay ka socdo kulamo xasaasi iyagoo dhanka kalena Axmed Madoobe Kismaayo isku geystay odayaal dhaqameedyo kale oo taageersan Axmed Madoobe ayaa u muuqda mid aanan marnaba u tanasuli doonin dowladda dhexe cadaadis kasta oo ay saarto sida ay sameeyeen madaxweynaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Xaaf iyo Shariif Sakiin cadaadisaas badan kadib waxay ogolaadeen inay haatan sameeyaan sida ay dowladda rabto oo aysan isku soo taagin xilka doorashada maamuladaasi indhaha shacabka Soomaaliyeed ayaa u sii jeedo dhanka Jubbaland maadaama lagu kala bixi doono loolanka socdo Galmudug ee u muuqdo in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay Muqdisho xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xiisada ka dhex taagan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xildhibaan Fiqi ayaa markii ugu horeysay su'aal geliyay ujeedka dhabta ah ee ka dambaysa dagaalkan ee afka ah ka dhaxeeyo gobolka iyo wasaaradda caafimaadka kuwaas oo ku sheegay in dagaalkan uu taagan yahay cid qaadanayso lacagtaasi ka soo xarota buuga caafimaadka Fiqi ayaa sidoo kale waxa uu yiri su'aal geliyay sababta ay wasaaradda maaliyadda u gabtay kaalinteedii maadaama iyada loo idmaday qabashada lacagta soo gala dowladda xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa arintani kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxaana uu yiri sida tan gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda caafimaadka ma waxay isku hayaan ma buuga caafimaadka mise waa cid qaadanayso lacagtaasi soo xarota buugaasi caafimaadka xujeeda loo jarayo markuu halka marayo wasaaradda maaliyadda aaway kaalinteedii masayrku waxa uu fasirin karaa maaliyaddu xujaydu la qaadan doonto buugaasi haddii ay sidaasi lacagtaasi waa in lagu xarayaa qasnajiga dowladda haatan Somaliland hogaamiyaha maamulka Khaatume State Professor Ali Khaliif Galleer ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalkaasi Gili Professor Galleer ayaa shaaciyay arin uu ku sheegay in bulshada reer Somaliland laga qariyay isla markaana looga been sheegay taasi oo ay ku saabsan socdaalka madaxweyne Biixi ku tagay caasimadaasi dalkaasi Gini Galleer ayaa sheegay inaysan jirin wax heshiis ah ay dowladda Gini u saxiixday madaxda Somaliland ee boqoshada ku tagay ay ku ictiraafayso dowladda Somaliland waxa kale uu ka dhawaajiyay in loo baahan yahay in dib loo furo wada hadallada fashilmay ee Somaliland iyo Soomaaliya sugan xusay in la diidan yahay wada hadalladaasi inay dib u furmaan Professor Ali Khaliif Galleer ayaa arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri heshiiskaasi ay Gini ku saxiixanayso ma jirto ictiraaf ay ku saxiixanayso ma jirto war dadka yaana lama luufinin annaga oo meel qabno oo aan is yeelin aan wada hadalku lama ogolo أنت نقول لنا وركي قدام بيئة إن كجاين الصومالي ورور كلامات أنت القوة كل بدنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته فضل هديات كوسب تاجلال كنا سبسكرايب نص ساعة يوم بلاك نفرسي وكوسو قرر وركي قدام بيئة مرة الصومالي عالم يا صار بنو ناسني